kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Wacaal Tube fadlan hadii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato janaalka subscribe saar oo taabo gambaleelka si ay kuu soo gaaraan warbixinadeena ugu dambeeyay ee aan soo galino maanta waxaan eegi doonaa sheeko ku saabsan sheekh reer Uganda oo loo aqalgeeyay nin halkii uu ka sugayay haweeney imaam u dhashay wadanka Uganda oo kamid ah wadaadada ugu caansan dalkaas ayaa xiriirka loo jaray kadib markii uu guursaday nin uu u maleeyay inuu yahay haweeney sida uu qoray wargeyska Daily Monitor ee ka soo baxa magaalada Kampala. Sheekh Maxamed Mutomba ayaa argagaxay kadib markii uu ogaaday in qofka xijaabka xiran ee uu haystay xaaskiisa uu yahay nin lagu magacaabo Richard Mutushabe. wadaadkan oo sida la sheegay la khiyaanay ayaa u maleynayay inuu guursaday haweeney lagu magacaabo Iswaabullaahi Nabukera sida uu faahfaahiyay wargeyska. xogtan oo sheekadeeda si weyn loo hadalhayay maalmihii la soo dhaafay ayaa lagu sheegay in khiyaanada shaaca laga qaaday kadib markii ay boolisku xireen Tumushabe oo lagu tuhmay inuu telefishin iyo dhar ka xaday guri daris la ah guriga cusub ee xaas ahaanta loo dajiyay. haweeney askariyada oo ka tirsan booliska oo howlahooda caadiga ah ku guda jiray ayaa baaritaan ku sameysay qof dumar ah oo markii dambe xabsiga saldhigga la geeyay. hase ahaatee waxaa la argagaxay markii baaritaano dheeri ah lagu sameeyay oo la fahmay in qofkii dumarka loo maleynayay uu yahay nin isqarinayay. sidaas waxaa yiri Mr. Mugera oo uu soo xigtay wargeyska Daily Monitor. Sheekh Mutomba oo imaam ka ah masjid ku yaala xaafadda Kayambisi oo qiyaastii 100 kiiloomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada caasimadda ah ee Kampala ayuu wargeysku sheegay inuusan gogol la wadaagin qofka uu u haystay xaaskiisa cusub kadib markii ninka haweeneyda iska dhigayay uu sheegay inuu caado qabo. waxaa ninka la xiray ku soo oognay dacwado isugu jira khiyaano, muuqaal bedelis ah, tuugnimo iyo inuu si sharci darro ah qalab ku qaatay isagoo been ka sheegaya aqoonsigiisa saxda ah ayuu yiri Mr. Mugera oo la soo xigtay. wargeyska Daily Monitor ayaa soo tabiyay in Sheekh Cabdulnuur Kakande oo ah qaadiga gobolka uu dhacdadan ku tilmaamay mid nasiib darro ah haddana baaritaano lagu wado imaamka. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa sheekada ku dhacday sheekhaasi reer Uganda ee la aqalgalay ninka uu u maleynayay haweeneydiisa. inta aan ku kulmi doono warbixin xiiso leh oo midaan lacayna waxaan idinkaga tegaynaa nooli kulantee nabad ahaada.